asalaamu calaykum maqaarta meel walba joogtiin oo markale muuqaal cusub aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo wax walba oo ka cusub suuqa kala iibsiga ah Bayern Munchen oo si rasmi ah la wareegtay Eric Dier Tottenham oo iyadana si rasmi ah u qaadatay laacibka lagu magacaabo Dragon Arsenal oo gacanta ku dhigtay markaan Amadou Onana Chelsea oo dhamaystiraysa laacibka Paulo Dybala waqtiyada soo aadan Arsenal iyo United isku haysta weeraryahan ka ciyaara Talyaaniga qosolka laacibka Sancho iyo ku biiridiisa Dortmund Barcelona oo markaan ku dhow inay la wareegto laacib da'yara Man United oo u dhaqaaqday weeraryahanka Ajax oo ciyaara ee Brian Bobia la yiraahdo haddii aan muuqaalka ka hesho like garay kanaalkana subscribe noo saar haddii aanu ku bilowno saxiixyadii maanta dhacay ciyaartoydii sida rasmi loola wareegay Bayern Munchen ayaa si rasmi ah oo la wareegtay Eric Dier soona bandhigtay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munchen nimanka Bundesliga xooga ku haysta ayaa ugu dambeyn la soo wareegay Eric Dier waa saxiixii labaad ee ka soo qaadanaya kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur hore waxay ugu soo qaadeen goolaliyahoodii Harry Kane haatanna waxay ka soo qaadeen laacibka kale ee reer England daafaca ugu ciyaarayay Tottenhamna Eric Dier ayaa ku biiray Bayern Munchen si rasmiyan ah isku soo noqod male sheekadu waa isku dhamaatay Dier waa laacib ka tirsan Bayern Munchen arrintiisuna markaan waxay noqotay mid khalaas ah isbuuc ayaa lagu dhameeyay Eric Dier oo dhan warkiisa iyo wax dhanba hal mar ayuu soo baxay hal mar ayayna arrintu waxay noqotay Dier waa lagu kala baxay Tottenham oo lagu ka cagajiiday ninkan wuxuu rabaa inuu iska baxo Tottenham waxay tiri waayahayo inta anagu laacibka bedelkaada raadinayna oo wada hadal aan la fureyno la sug marka sheekadu waa isku dhamaatay Tottenham bedelkiisa helaan ninkana Bayern ayuu ku biiray dhinaca kale Borussia Dortmund laacibkeeda cusub Sancho oo cadeyntiisa ayaa bixisa lambarka 10aad ee kooxda kubadda cagta ee Dortmund ayaa farta laga saaray Sancho tababarkii ugu horeeyana wacdara ayuu ka muujinaya qosolkiisa inaba lama qiyaasi karo wiilku waa caburna Ten Hag ayaa caburinayay oo markuu arkaba xanaaqiisa ayaa cirka laakiin markaan wuxuu tagay meel laga jecel yahay awal hore oo meel laga jecel yahay ka soo tagay Dortmund waa laga jecelay waa laga wax walba loo sameeyay Manchester oo imaadayo waxa la yiri keedkan iska fariiso iyo buuqa la geliyay marka ninkii maanta tababarkiisa ugu horeeyay marka wacdara ayuu ka dhigay ninka wuu faraxsanaa cirkaas ayuu mariyay marka ninka Sancho markaan wuxuu taagan yahay waqti wacan ayaa ay bilowday Manchesterna wuxuu taagay waa kala dhamaanayna amaadanba waxa ku xigtaba in si rasmi ah ugu biiro kooxda Dortmund dhinaca kale Sportska iyadana saxiixeeda ayay dhamaystireen laacibka lagu magacaabo Dragon waxay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta Genoa 30 milyan ayay kula wareegeen waa bedelka laacibka dheeraad Eric Dier nimanka Tottenham oo daafacidooda ama iska dhaawacnay Dierkii ayay yiri waa baxa waxa la yiri warna sug bal bedelkaada inta heleyno bedelkii markuu yimid isaguna waxa la yiri fasax ayaa tahay albaabkadu wuu furan yahay hortaada hore alla ugu dambeyn Tottenham si rasmi ah ayay ula wareegeen laacibka lagu magacaabo Draxler Genoa ayana ka keeneen dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United oo lambar 9 raadinaysa ayaa markaan waxay u dhaceen weeraryahanka kooxda kubadda cagta Ajax ninka lagu magacaabo Brian Borbel laacibka la yiraahdo waa laacib feerweyn waa laacib adiga marka laacibkan hore wuxuu soo shaqeeyay Ten Hag marka Ten Hag ayaa raba laacibkan inuu keeno gegada Old Trafford ninkan xatee waxa lagu xantaa marka dib u sii baara arkay waa Lukaku la lahaab camal maadaama xooga u feereewan yahay isku siiyin marka Manchester United Brian Borbel ayay rabaan inay soo qaataan Old Trafford keenan Ajax ayaa markaan laacibkan rabtay inay iska fasaxdo Ajaxna xil ciyaareed fiican kuma jirto ayada dhanba ayaa ka dansanba marka laacibkan Manchester United ayaa markaan gacanta u taagtay niman heli kara Grayson laacibka Stuttgart oo 17 milyan ku heli kara ninka xil ciyaareedkan wacdareynaya Bundesliga ayaa laga doorbidayaayo ninkan ayaaba la aadayaaba dhinaca kale kooxda kubadda cagta Chelsea iyaduna suuqa lambar 9 ay raadinayaan ciyaartoy kala weeraraan laakiin Paulo Dybala wararka qaar sida sheegayaan isbuucan ayaaba la dhameystirayaaba 13 milyan ayuu joogaa laacibka lagu magacaabo Paulo Dybala Chelsea markaan Mauricio Pochettino wuxuu rabaa laacibka inuu haatan soo qaado oo arrintiisa dhameystiro marka nimanka Chelsea hayna Dybala ayaa markaan gacanta ku dhigayaan haddii se wax kala dhicin haddii isfahmi weynin laakiin markaan Dybala ayay ku dhaweeyeen inay la wareegaan dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal iyadoo caawa war farxad la ay helayaan waxay gacanta ku dhigeen ayna heleen laacibka lagu magacaabo Amadou Onana kooxdiisa Everton waxay raadiyeen bedelkiisa waxayna ka arkeen kooxda kubadda cagta ee Brentford laacibka lagu magacaabo
Farian ayay rabaan inay ka soo qaadaan kooxda kubadda cagta lagu magacaabo Brentford marka bedelkiisa ayay doonteen Everton waxay dhaheen kontonkeena mar qaadanayna bedelka laacibkana haatan ayaa doonanayna marka Arsenal laacibkan jeebka ayuu ugu jiraa wax kala raadiya lambar 9 raadsada ciyaartoy kala doonta marka nimanku laacibka gacanta ayay ku hayaan dhinaca kale Arsenal iyo Man United dagaalkooda suuqa wali uu taagan yahay waxay isku haystaan laacibka lagu magacaabo Joshua Zirkzee waa laacib Bayer leedahay kooxda Bologna ayuu joogaa xil ciyaareedkan dhowr iyo 10 gool ayuu dhaliyay kooxda Genoa siiyay marka nimankan Arsenal number 9 ay goobayaan albaab walba ay gargaraacayaan markan laacib Manchester United danaynaysay kooxda Bologna ka tirsan ayaa markan dalaq dhaheen oo Man United ay ku qabsadeen marka Man United iyo kooxda kubadda cagta ee Arsenal dagaalkooda suuqa uu sii taagnaa doonaayo laacibkan ay ku dagaalamayaan laacibka lagu magacaabo Joshua Zirkzee waa laacib fantastic Man United ayaa doonaysay Arsenal ayaa markan dalaq soo tiriyo taagan anaga ayaa laacibkan idinka dulqaadayna Arsenal diyaar ay u tahay laacibkan inay la wareegaan marka Zirkzee ay qaadanayaan dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa diyaar u ah 50 milyan inay ka bixiso Subamendi oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Sociedad laacibkan ayaa muddo dheer Arsenal raadinayay waqti dheer daba taagnaayeen laakiin haatan diyaar ay u yihiin inay laacibkan lacagta ka bixiyaan Arsenal markan waxay ku dhowdahay inay kooxda kubadda cagta Real Sociedad arimaha kala dhameeyeen Subamendi waa laacib kale oo Arsenal ku soo wajahan qadkeeda dhaxaba marka kooxda kubadda cagta Arsenal waxay helaysaa Martin Subamendi oo 60 milyan ay kaga soo qaadanayaan ilaa 50 milyan kooxda Real Sociedad dhinaca kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa markan 2 milyan kula soo wareegaysa laacib daayir oo xulka Sweden u ciyaara laacibkan ayaa lagu magacaabo Lucas Barvella kooxda Barcelona ayaa haatan cadaadis ka saaraysa kooxda u ciyaara laacibkan si ay uga heli lahaayeen dalabkiisa Barcelona ayaa diyaar u ah inay laacibkan lacag walba ka soo bixiyaan oo ay sheegto kooxda kubadda cagta AK oo horyaalka dalka Sweden ciyaarta hadii aan muuqaalka hesho walaal garay ka subscribe noo sarkulba